subax wanaagsan saaka waxaan u jeclaystay inaad halka isugu timaadaan inaan idinkala hadlo waxyaalaha aan isleeyahay danta caamka ah waxay ku xiran tahay shaqadiina iyo ragga badidiisa waxa suuro gasha inaanu iska naqaan banaanka laakiin cadaalada ragga haya in haddana aanu wejiga iska baranno anigu inaan barto waxa suuro gasha iyagu intooda badano inay yaqaaneen saad u tihiin dowladdu waxay ka koobantaa xubno badan oo xubnahaas badan mid walba haddii ay hawsheeda sida xalaasha u haysato dowladnimadii markaas ay suuro geli karto xubinta adinku aad haysaan waxay ka mid tahay xubnaha qiimaha dheer u leh dowladnimada suurowgeeda haddii aynan jirin ama aynan caafimaad qabinna ay dhici karto dowladnimadaasu mid magaca inay noqoto haddaynu maskaxdeenna dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa iyada oo dalkoo idilaba uu si u bacsanaa oo si aan hufnayn us ahaa haddana dhutinta weynu waxay ku suurowday cadaaladda inayan sidii loo rabay aynan ahayn iyada oo sababuhu ay fara badan yihiin oo haatan qof khaasa aan la saari karin haddii aynan taasu dhicin cadaaladdu ay ku joogi lahayd amaba loo dayn lahaa hawsheedii inay sidii xaqa u qabsato ma ay dhici karin haba yaraata ee maamulkii xumaa oo dalka lumiyey dibna u dhigay hore u socodkii adduunkoo idil jiray taa waxaan u leeyahay haddeed wixii xunuuba sharci baa ku fadhiya oo sharci baa jira baab qaban hayaa jira haddee baabka haddii lagu qabto waxay la tahay tuuga ma dhacdeen laaluush ma dhaceen waxa haatan loo baxshay musuq maasuq ma dhaceen waxa saad u og tihiin nimankii khabiiriinta ahaa ay ugu yeereen waa siyaasaddaa doonaysa oo beenta ahaana ma ay dhaceen wixii siyaasadu doonayso iyo waxayn doonayninna waa kala caddaan lahaayeen haddii sharcigu sidii loo soo dejiyey ama aynu kitaabada ugu dhigannay usu fuli lahaa taa yacni waxaan idinka xusuusinayaa habowgii hoggaanka dalku ishabaabay hooyadiisii waxay ka mid ahayd ama waxayba ahaydba sharciga oo shaqadiisii aan qabsanin waxaa isweydiisla marka habowgaasu maxaa u sabab ahaa ma ragga qaaliyaalka ayaa u sabab ahaa mise waxaa u sabab ahaayeen siyaasigii mise waxa u sabab ahaayeen nidaam xun oo dhashay maxaa u sabab ahaayeen waxaan odhan karnaa markaa sababuhu waa badan yihiin haddaba si aanan midna waxba ugu dhimin waxay ku hagaagsan tahay sababtu si kastaba ha ahaadeene cadaaladdu sidii qumanayd uma aynan fulin muddadii aynu soo dhaafnay maanta taariikhdeennu meel dheer bay ka soo bilaabatay laakiin 21kii oktoobar waxay furtay baal cusub maanta baalkaas cusub ayaynu wax ku qoranaynaa isaguna waxa weeye wax walba dhabbihii xalaasha ahaa inay ku fulaan cadaaladdu waa inay ku fushaa qolada sharciga samaysaa waa inay ku fushaa qolada shaqada maamulka dowladduna waa inay ku fushaa shicbiga soomaaliyeed waa inuu ku fulaa nin shaqaaluhu waa inuu ku fulaa beerleydu waa inay ku fushaa xoolo dhaqatadu waa inay ku fushaa dadka tacliintu waa inay ku fulaan nin walba waddo cad buu leeyahay waddadiisa waa inay ku socdaan taasu waxay marka suuro gelinaysaa dad qoom ah oo dowlad ah oo socda oo sharaf leh inaynu noqonno yay suuro gelinaysaa haddii qolaba dhabbaha xaqa ay ka leexato oo u weydaarato qolada kale dhabbaheeda wax walba markaa waa markay isku qasmahayaan kadibeedna waxay dhalaan ay tahay xumaan iyo musuq maasuqii foosha xumaa waxaan leeyahay marka bacdama intii revolutionka us dhacay amaba
dadka salabka sida ay xukunka dalka la wareegeen iyo intay dawladda dhiseen intaba aynan suuro gelin adinkoo qaasa inaan idinla hadlo saaka yacni sababteedu taas bay ahayd saaka ururkeennu ama aniga ujeedadeedu waxaa weeye mas-uulkii aad lahaydeen dhabarka inaan idinka saaro wax marmarsiinyaha oo suuro galaana inaynan jirin mas-uulkaasu waxaa weeye xubinta lafdhabarka ah xubnaha badan oo dawladdu ay ka koobanto adinka haysaan qaaliyaalka iyo hayaan meel kastaba ha joogeen shuruucdii waddanka lagu wadi lahaana giddigood waa dhigan yihiin oo mid aan oolino ma jiro ama ha noqdo midka casriga ha noqdo ama midka sharciga ha noqde mid aan dhignayno ma jiro waxaan idin weydiisanayaa inaad fulisaan sharciga oo sida xaq aad u fulisaan waxaa caadada adduunka ama taariikhda aan ka akhrisan jirnay ama haddaanu dalalka adduunka aanu marno aanu la kulannaa monumentooyin waaweyn ama yacni sawirro waaweyn oo muxuu ahaa meelaha caasimadaha dawladaha hore u kacay ka dhisan oo ay u dhisan yihiin niman qaaliyaal ah oo geesiyaal ahaayeen oo la dagaalamay shubada ama laaluushka oo la dagaalamay cadaalad xumada oo la dagaalamay xataa madaxdooda oo ka hor istaagay dadkoodu amaba dalkoodu inuu waddo xun qaado oo iswaayo nabadgelyo ama cadaalad iswaayo annagu xaq baanu u leenahay ragragaasu inay naga soo baxaan ku dagaalama cadaaladda geesiyaala aan ka baqin damaaciga adduunka kuwa hor istaaga tii xumayd oo qolada ahayd oo lala ordi jiray hor istaaga kuwa cabsi geliya hor istaaga waanu u baahanaa annaga naftanadu waana adinka hadda saaka iyo hor fadhiya ragga ku duuli karaa qiirada caynkaasa oo marka sharaf wanaagsan soo hoysan karaa mid haddii laydin fiiriyo adinka oo sharfaaya qaaliga ninka la yidhaahdaa qiimaha uu leeyahay ragga cadaaladda maamula qaarkood laakiin annagu kulli baan u naqaanaa ninkii haya muxuu ahaa cadaaladda fulinteeda mas-uulkeedu uu saaran yahay oo idil baanu u naqaanaa saa yacni waa u baahan tahay soomaaliya inay hesho wiilal noocaas ah oo taariikhda adduunka ah wax badan baan aniga naftaydu la kulmay ama akhristay qaali aad iyo aad looga baqo laakiin baqdintaasu ayan ahayn inuu dad uleeyo baqdintaasu ayan ahayn inuu muxuu ahaa wax kaleeto sameeyo laakiin haybadiisa laga baqo ka timid naqidda uu naqahayo sharciga oo uusan marnaba ugu asxaanfalaynin oo turjubaan xaq ah keliya waxaan idinka rajaynayaa baalkii cusba oo taariikhda soomaalidu ay ka bilaabatay aniga oo tixgelinhaya ama adinka oo ka bilaabahaya in aad shaqadiinna u gudataan sida fiican geesinimada ah wadaninimada ah islaamnimada ah waan sheegay maalin dhoweydna haatanna waan idinku celinhayaa annagu haddaanu nahay dadka sulubka sida ama hubka sida amaba guddiga sare oo muxuu ahaa revolutionka ka kooban ma doonayno inaad dadka noo xirtaan bilaash ma rabno annaga waxaanu dagaalkanagu uu ka koobmay cadaalad xumada inaan la dirirno sidaas baanaan u yeelaynin marka cadaaladda marka lagu cayaaro haddana inaanu magaca annagu sidno xumaantana dad kale ay sameeyaan taas la yeeli mayno sharci naga xidhaayaana ma jiro meel lagu gabanayaana ma jirto ninkii ay ka dhab tahay ilaahay horti inuu dadkiisa xaq u xukumana waa midka aanu garab taagannahay waxa wanaaga uu mudan yahay aan marinayno midka musuq maasuqii maskaxdiisa ka fujin la'na ka aanu yeeli mayno in annaga ceebtu ay noo timaado isaguna uu falo oo ceebta sameeyo taas ka yeeli mayno yuusan ku riyoon
taas waxay inoo kala dhigaysaa haddii kalsooni shaqadaada inaad ku qabsato ma rabno inaad naga baqdo ma rabno sekretariga cadaaladda inaad ka baqdo ma rabno inaad qolo kale ka baqdo damiirkaaga inaad ka baqdo waddankaaga inaad ka baqdo ilaaha inaad ka baqdo oo xaq aad marka ku fuliso taas baan kaa doonaynaa waxaanu doonaynaa inaad shaqayso oo saacadda u dhigan dowladda waxaa weeye halka saac ama 7 nin walba si u yaqaan in shaqada la tago in saacadda qayiman iyadana oo go'aan laga baxo ma ogolaan karno 5 saac nin shaqo tagaaya dadna u soo xoreysan yahay oo xabiska isugu jiro ma ogolaan karno muxuu ahaa midda la yiraahdo xorriyadda duminta ah oo laynoo dhigayna yeelimayno waxaan idinka doonaynaa Soomaali ahaan inaad gidiga u kacdaan oo shaqada aad u fulisaan faylalka badan oo iskor saaran meel walbaba dalka Soomaaliyeed oo dadkii iyaga muxuu ahaa faylalkaas ku saabsanayeen ay xariga ku jiraan taasna ma ogolaan karno oo qalad weeye أولا العدالة دي بعد مركور كوجا فيسا تاسيشو ليش قف إنسان أو إلهي أبورتي وحرني من الساعات كقبضتي مالك وحرن أين فرض بهاي إن أما تنباد لا بهاي أما لو وما لا أتلاقى مدة اللي بعدنا وحي بقولها هي عداوة بقالها ذلك الله بدر ليس من برين نسيد دين دونه إن هو أفر شنبي وزحر كتيرة تاسنا وحوي عدل وضنيمه هو يرد بيكبل عوانيسا شنبي لود أو مصروف oo wax kale lagu qaban karay waxa nin loo cunsiinayo iyadoo waa yaabkeed bay ku jirtaan hadii loo dhanba laga eego waxaan isleeyahay ninka xaakimka naftiisa waxay ku tahay cuqdad aan ka baxayn maxaa waay markuu min dambiile yahay waxaan ugu ogahay inuu san hameenkiisa xanin walwal miiran kaasaa ku dhiman keeraa ku dhiman goormaad samayn doonta bari u dhigo saadna baad qaban doonta suuleeya inuu ka nasto oo madaxiis bannaan oo marka wuxuu qabsanayo kale u qabsado ayaa uga roonay waxaa hor fadhiya Madaxweyne Maxamed Cali Sharmaan haddii ay u yaraato 2 sanadood ayuu hayaa xukuumadda militariga fulay baa la yiri nin dhintiye nin dheer u maragashada xakaamada militariga ana madaxo ahaa weydiiyo waligeed nin sii daaynaanay markii aan shiriyo xakaamada militariga وحي أن كردر دار مجري وحي أهيد ها كبق العدالة ده هادي منك لغا قردري عسكري قاسيدة هادي لغو قرلي هاي شعبي يوضن كخيرون حر ساس بان ورنجري ورغي من سيدا مدهين ويري مدهين هل لغا دايا مدهين منكي أتكون مقاشو إيسو شيء أنا حراي يستغى بان ورنجري معنى روحا وإنا آمن سنة العدالة ده ليش شرعي وإنو كسر ريان من كستبا ما aha sharciga in ragga qaarkii ay ka sareeyaan oo ismoodaan ama markay xoogaa xoolaaleeyeen ama markay boos hayaan in sharciga ka sarbarayaan been weeye sharciga nin karbaray ma jiro taas waxa weeye qaraabka wadanka marka uu socdo markii sharcigu uu hoos maro oo nin u siraahdo hadda sharciga nin baa sameeyay ama ma sameeyo sharciga nin baa sameeyay laakiin wada xalaala oo quman oo dhabayaal badan leh oo laga fiirsaday baa loo sameeyay waxaan loo sameeyay maslaxadda caamka ninka xulna in lagu qabto oo khaaska ah kaligiisa caamiyadana nabadgelyadooda iyo maslaxadooda in lagu daafaco marka nin kaliya marka see ku sameyn kara kii laga gaashaabanayo sharciga loo sameeyay isagii weeye see ku bedeli kara ta nacam sharcigu waa inuu dul joogayso taas yani waxaan ka wataa aniga oo hawl wanaagsan idinku ducaynaya haddana sharcigii waa inuu sarmaraa ninka laakiin naqahaya naftiisu waa inuu sanu qaadan mar hadduu isagu naqahayo sharcigii inuu yahay isagu sharciga ma aha waa ka turjubaanaya keliya waxaan ku cilmi leeyahay in dhibaatooyin badan adinka naftiinu aad la kulmaysaan oo cadaaladda lagu goynaysaan inay dhici karto dhaqaalaha inaad ka cabataan qoladiina tanu oo aan la socday waxaa dhici karta inaad meeshii wax lagu xukumaya aad ka cabataan oo aan fahmi karo waxaa dhici karaa wixii wax lagu xukumayay oo alaaba ahaa oo suuro gelinaya xakaamadu inay hagaagto inaad ka waxaysan tihiin waa dhici kartaa laakiin Soomaaliya waxay ku maamaalaan nin walba taagtiis baa qodox ugu tagtaa awoodeennu hadday inoo diido sharcigeena
وإنه كوجو صنع أنا كوجو دومنا جيت كوستيسا ما شرتو سبب أي نوران كرنا وحا مغنيس قروح بدن أو بلاران كراس قروح بدن كوا مغن مركز شرطي سؤال معي نو تاسو وين عندك waxa lagu xukumo waxa weeye aqoonta sharciga oo ninkii sharcigii fulinaya ay laga maarmaan tahay nin u qalma inuu meesha joogo midda labaadna waxa weeye niyo wadaniga inuu leeyahay midda saddexaadna in uu fahmayo cadaaladdu waxa ay tahay iyo xubno kale oo badan inta haday joogto kursigu waxba lama maqna وأي هبون تاي إن وراغه بوغي قلمدي قدي كرسي حفيزكي غاريغي غير كي نسكر كبير وافي عنها لكن الدين لواي وأود ودن كوز غاري واي أدوغنا واتشوكتا أقومتين والي هاي ومدين إنات كلا سارتا لغا دونايا انت بمركا وادهلي كرتا وعن رجين هي إنه مركا كلا أنه بصنو mar walba inaynu tixgelino dalkeenu muxuu dhali karaa wixii inaga maqano maxay inaga maqan yihiin haddii awalto aynu saaraynay maamul xumo ballan baan idinka qaadahayaa maamul xumo waxna laga xada maahe waxaanu anagu guddoominay inayan jiraynin wixii naga xadana ragga ku shaqalow hadday ku qabtaan inaan laga daba tegayn oo noo siidaa waa qaraabadanada inayan yeelaynin kuwaasna adinkaan idin keeni doonaa waxaan rajaynaynaa xukunkooda inaad marisaanin waa kuwii naga xadaa annaguna saas aanu guddoominaynin waxaan ku soo koobahayaa dadka inkasta oo aad sharcigii ku jirtaan oo sharciga dadkii madaxda u aad tihiin annaan ka xumahay inayan suuro geli karin halka in lagu soo urursho qaaliyaalkii waddanka balse aan hubo adinkuba aad u warrami doontaan anagu waxaanu suuro galsinaynaa haddii alla idmo aniga iyo revolutionary councilba ama armed forces in aan annaguna aanan ku joorfalin anaana u ogolaan qolo ku joorfalaysa sharciga adinkana waxaan idinka rajaynaynaa ka turjubaanida sharciga aanu kuna tashanayno in aad muxuu ahaa wax ka qabanaysaan anigu waxba ka sheegi maayo hadallo badanoo lagu hadlo laakiin caqli iyo faham adinkaan idin daynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته